بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا أبوك محمد نور waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan sii xoojiyo mowduucii in aan soo dhigo Facebook oo ciwaankiisu ahaa sidee noloshaada ama naftaada aad u horumarin kartaa. Nahantii mowduucaasi waa mowduuc aad u ballaaran waana mowduuc insha Allah ta'ala qof kasta oo bini aadam u baahan yahay noloshiisa inuu ku horumariyo. waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan soo qaato oo example oo saamaxaya hadii qofka bini aadamka uu ku dheeraado in noloshiisa uu sii horumariyo ay u tahay fursad aad u ballaaran in noloshiisa uu sii horumariyo. nahantii inta aan mowduucaasi aan ku wada baaritaan waxaan ka dhex faa'iiday waxyaabo badan oo aan la soo koobi karin. mid kale mar walba oo noloshaada adigu aad horumariso mar walba noloshaada aad ku dhiirigeliso ee horumar ay gaarto mar walba oo naftaada aad u heeliso waa fursad kaliya markaasi ay ku banaan in naftaada aad ku horumariso. haddii laakiin nafsadaada aad ka sii jeesato ogow taasi waxay tusaale u tahay aan lahayn noloshaadii jaaniska la siiyay in adigu aad ka faa'iideysto weysi hadhowna ay keeni karto fursadii lagu siiyay inay ka baaqato naftaadana ay soo wajahaan waxyaabo badan oo problems ah. laakiin inta adduunyo aad joogto waxa aad iyo aad u fiican mar walba inaad xooga aad saarto in noloshaada aad horumariso adigu aad noqoto aan dhahay qof mar walba ku haboon nafsadiisa qof mar walba aan dhahay nafsadiisa ka fikira marka inta aad ku dadaasho waxa kuu sahlan inaad si dhaqso ah aad ku gaarto horumarka adigu aad jeceshahay. dadka qaar ayaa waxa ay sameeyaan xindaab noloshooda markaasi caqabad ay u keeni karaan. dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin fikrado qaldan taasoo ah hebel uu uga fiican yahay hebel uu uga aqli badan yahay hebel karti ayuu u dheeryahay. waxyaabaha noocaas oo kale waa waxyaabaha qofka bini aadamka horumar uu gaari lahaa nafsadiisa asiga caqabad uga dhigayo waayo aan dhahay qof kasta oo bini aadam ah meel ayuu ku fiican yahay. adiga marka waxaa la rabaa inaad baaritaan isku sameyso meesha aad ku fiican tahayna aad iska horumariso si markaasi aad u gaarto guulaha adiga aad jeceshahay mustaqbalkaaga dhow iyo mustaqbalkaaga fog in adigu aad gaarto. laakiin haddii adigu ra'yigaaga macnaha aad ku dabacdo inaad tiraahdo hebel uu uga fiican yahay hebel waxaan uga fiican yahay adigana aad meel iska fadhiso taas waxay sabab u tahay jaanis badan oo hore lagu siiyay in adigu aad ka faa'iideyso weysay waayo dunidan aad u jeedo aad ay u ballaaran tahay dunidan aad ay u qurux badan tahay dunidan adiga ayaa lagu keenay dunidan markii lagu keenay nasiib ayaa lagu siiyay dunidan markii waxa laga baahan yahay nasiibka iyo jaaniska adiga lagu siiyay in adigu aad ka faa'iideysato nafsadaadana aad ku horumariso nafsadaada adigu aad ku ballaariso in adigu aad la timaado aan dhahay wax qabad aad u ballaaran had iyo jeer nafsadaada adigu aad u heeliso haddii inta adigu aad xooga saarto oo adigu aad ku dadaasho aad bay u sahlan aad macna nafsadaada macnaha u gaaraysaa horumar aad u ballaaran. laakiin haddii inta adigu aad sameey weyso ama adigu nafsadaada aad horumari weyso waa waxyaabaha ugu badan ee haduu macna naftaada caqabad u keeni kara. fadlan ku dadaal noloshaada adigu aad horumariso jaaniska lagu siiyay ka faa'iideyso si adigu aad u noqoto qof aan dhahay mustaqbalkiisa dhow iyo mustaqbalkiisa fog guul ka gaara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.